talada socoto faydo kama keeno faysan faydo kama keeno faysan qadiyadii kale qalbi dhagax soo martay oo baarlamaanka inta ka dooda guddi loo saaray muddo loo qabtay muddadii loo qabtay waa la soo dhaafay cid baarlamaanka ku soo celida lama arko laakiin haddaan warka ka bilowno hebel la dhiibay guddiga loo saaray aawa iyo honorable minister la dilay oo professor ah oon ilaahay haddana meel lagu ogeyn dadkii dilayna ay magaalada joogaan ay guryahooda jiifaan waxaa kaloo ka mid ah xasuuqii bariire oo ciidamada ajnabiga ay geysteen ayadana waxba la iskama weydiin kalfadhi baarlamaan oo ka furmay oo looga dooda ma jirto ilaa iyo intii dad la dilay guuro iyo ilaa iyo suxufi meel aan la qarxinin ma laha sidoo kale cabashooyin isu soo tarayo naga soo gaaray ayaa jira dadkii waxyeeladu ka soo gaartay meeshaas gargaarkii loo fidiyay ama dawladda ku deeqdo ama banaanka laga soo diray ayadana in dhibaato ka jirto oo kala socosho xataa ay jirto meeshii hal sanduuq dadkaas inta loo sameeyay wax lagu aruurin lahaa laba sanduuq oo kala gedisan inay jiraan laba shaqo oo kala gedisan inay jiraan shaqooyinkii isdabamarin inay ka jirto ayaa la sheegayaa waan codsan lahayn marka iyada ruuxeeda warbixin hadda waxay u muuqataa in xildhibaanada qaarkood weliba kuwa xukuumadda mucaaradka ku ah in loogu talagalay inay mataqaanaa ku nafisaan oo ay fadhi ku dirir ka dhigtaan ayaad moodaa taasna sharafta iyo qiimaha baarlamaanka ayay dili doontaa hadday saa ku sii socoto hadda maalin dhaweed 20kii bisha xukuumaddu waxay soo saartay dadkii meeshaas ku dhintay inay ahaayeen 358 kuwa dhaawacmay 220 inay ahaayeen kuwa la waayeen 56 inay ahaayeen mudana gudoomiye mudanayaasha sharafta leh xildhibaanadii waxaan kamid ahaa 3 isbitaal oo midna digfeer uu yahay oo hadda Erdogan aanu malaynay inuu magaciisa loo bixiyay midna uu yahay isbitaal Madiino midna uu yahay isbitaalka Masaarida oo saddexdoodaba aan tagnay oo aan dul istaagnay liisaskii dadkii dhaawac ahaayoo la keen 207 waxaan ugu tagnay isbitaal digfeer Madiinana 71 waan ugu tagnay isbitaalka Masaaridana waxaan ugu tagnay 318 waxaan la leeyahay waxaa dhimatay oo meeshaan ku dhaawacmay aan ka wadaa 220 iyo 318 oo saddex isbitaal kaliya oo tobanaan kale isbitaallada Muqdisho ku yaalo dadna ku dhaawacmay dad dhaawacana yaalaan kuwana ay ku dhinteen aan la soo tira koobin meeshaas inay ka jirto arrin la doonayo in la dhumiyo oo jihadii laga dhumiyo disasterkii meeshaas ka dhacay ayaa ka muuqata dadka la dilaayo oo qaarkood fataatir ee qaarkoodna macaanka ama dadku waa isku hal bani aadanka khayraadka dalkaana waa loo simayahay dadkana waa isku hal honorable minister la dilay meel ku soo sheegay lagama hadli karo qaar kuwii dhahayna hadda intay ka hadlaayeen reer hebel labada gol waxaan ku jiran inaan hebel la taaban karin qof dad dil lama taaban karo dadka la dilayaan aan u wada hadalno sharciga aan soo noolayno aan dalku u shaqeyno aan hagaajino dalkeena dadkana waa isku hal haddaan isku hal ka dhigi weyno wax hagaagaya male wax toosaya male dadka aan been u sheegin aan iskaga tagna baarlamaan ma nihine haddaan qabiil raadinayn aan iskaga tagna baarlamaanka haddii kale aan ummadda u shaqeyno aan waddanka badbaadino aan shaqeyno sidoo kale waxaa la sheegay 56 qofood inay yihiin dadka la weysan yahay mudana gudoomiye mudanayaal meeshaan waxaan ku hayaa liis ay ku qoran yihiin 232 qofood oo qof walba magaciisa saddexan ku yaalo taleefankiisu ku yaalo qofka lagala xiriiraayo uu ku yaalo nambarkiisa da'diisu ku taalo lab iyo dhadig wuxuu yahay ku yaalo degmada oo deganaana ay ku taal oo la leeyahay oo dadkii soo ribood gareeyeen magacyadooda meesha ay ku qoran yihiin 232 markaan meeshaan ku hayno in la yiraahdo 56 waaye dadka maqan meeshaan waxa ku jira gudoomiye oo wax aqliguna yeeli kara ma ahan muwaadiniinta aan matelnana saan kuma mateli karo waxyaalaha qaar hortii aan lagu hadlin walaalayaal 20 sano ku dhawaad xildhibaanada sanadahay rag inta ka hadlay qaarkood weligoodna wasiiray ahaayeen ya haddaan wasiir yahay qaylina ceeb waay aan iska daayno waxaas aan warka waddanka u shaqeyno mudana gudoomiye shalay khudbadii madaxweynaha waxaa ku jirtay laba eray oo isleeyahay runtii labaduba aad u xanuun badan yihiin
mid waxaa ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dalkooda u dhimanaya oo dadkooda u dhimanaya oo maalin kasto dariiq kasta lagu dilayo oo cadowga ugaarsanayo iskuna dhigayo ummadda Soomaaliyeed sidii u badbaadi lahaayeen ee qarankan Soomaaliyeed in la yiraahdo caqiido kuma dagaalamaan waxaan aaminsanahay arrin gaf ku ah ciidamada qaranka ayama ciidamada qalabka sideynay waxaa halkan ka yeertay in khudbada madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta qaranka la fasiro ee si guracan loo fasiro madaxweynahana waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay waana sharaf iyo qiimo qof leh mana aha qof ku dhawaaqa wax noocaas caqiide iyo waxaasna kama uusan hadlin laakiin dadka fadhi ku dirarka oo ilaa xalay iyo waxa social media ka hadlay wararkooda in baarlamaanka loo keeno ummadda Soomaaliyeed loo baahiyo mudane gudoomiye sax ma aha ummadda Soomaaliyeed iyo inta dhageysanayso iyo baarlamaanka sharafta lana waxaan sheegayaa dadka in fiiro gaar ah loo yeesho waxaa kaloo mudane gudoomiye jira oo ayadu ruuxeeda muhiim ah waxaad moodaa isbedel inuu ku jiro howlgallada iyo shaqooyinkii amniga socday ciidamo farumihii ay ku jireen ka soo baxay ayaa la sheegayaa oo magaalada dib ugu soo laabtay meelo cusub oo cadowga qabsaday inay jiraan ayaa la sheegayaa waxaasoo dhan arrimo is soo taraya waayo u baahan ka baarlamaan ahaan iyo ka xukuumad ahaan in inta la iskaashado wax laga qabto waxaa halkan ka yeertay frontiga laga soo baxay arrintaas arrin jirta ma aha ciidankeennana ciidan fronti ka soo baxa ma aha iyagoo maanta meesha ay joogaan aad uga liito ayay ku dhimanayeen mindoorkooduna ku dhimanayeen in ciidanka la kiciyo dhanbaan loo diray soo kaca halkan imaada cadowga ka soo horkaca ee wax lagu raadiyo noocaas midowga gudoomiye wax baarlamaanku uu qabo ma aha waa wax shakhsiyaad kooban oo ummadda Soomaaliyeed wajiyadooda yaqaanaan ay qabaan midowga gudoomiye waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeed ee TV-ga ka fiirsan doonto arrintan in ay iska iloobaan wax kama jiraan ka soo qaadaan waxa xildhibaanada qaar ay meeshan ka sheegeen ma aha kumana matalaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxay sheegeen waa fikirkooda gaarka waa fikir aniga ay la tahay inuu guracan yahay waa fikir ku salaysan xukuumadda in la wiiqo cadowgana oo gacan sareeyo waa fikir ku salaysan burcadnimadii shalay aan ahaa burcad ha ii soo noqoto burcadnimadii aan meesha ka wado waxaan u baaqayaa weliba hay-adaha amniga xasaanadu ma aha waxaan rabaan iskaga hadlaaya xasaanadu ma aha in cadowga Soomaaliyeed gacan la siiyo lana sheegto in laga tirsan yahay baarlamaanka Soomaaliyeed hay-adaha amniga waxaan ku baaqayaa in shaqadooda qabsadaan xasaanadu yan qalad laga fahmin ninka wax uusan caddeyn karin meeshan ka sheego xasaanad ma haysto xasaanadu ma aha warqad cad oo arrinta ku qora ah in shacabka Soomaaliyeed niyada laga dilo ciidankeenna loogu baaqo inay ka soo tagaan fariimada ee halka yimaadaan midana gudoomiye meeshinka gacantaada ku jiro waxa ku qoran ciidanka frontiga ka soo tagay xildhibaanadii saxiixay waxaan ka rabnaa in baaris lagu sameeyo iyadoo ay cadeeyaan meesha ay ciidanku uga soo baxay inay sheegaan fadhi ku dir waa fadhi ku dir baarlamaanka Soomaaliyeed oo baarlamaanka Soomaaliyeed in been la iskala hor yimaado ee shacabka Soomaaliyeed been loo sheego ee media Soomaaliyeed been loo sheego ee fadhi ku diriyada la wareeriyo ee war been lagu wareeriyo ciidanka Soomaaliyeed loogu baaqo inay frontiga ka soo baxaan waxa sameeyaan xildhibaanyiin mudane gudoomiye arrintaas talaabo u baahan tahay guddiga anshaxa ee baarlamaankana waxaan ka codsanaynaa inay indhooda furaan ama gudinimada iska dhaafaan cid caddayn karto in ciidan uu fronti ka soo baxay ma jiro ciidanka Soomaaliyeed waa ka sharaf weyn inuu waxa sameeyo ciidanka Soomaaliyeed caqiido leeyihiin ma aha ciidan caqiido lahayn
mudan gudoomiye waxaan codsanayaa guddiga anshaxa inay bilaabaan howshooda inay qabsadaan gudoomiyaha guddiga anshaxa waa fadhiyaa xubnihiina waa fadhiyaan hortiina waxaa laga sheegay in ciidan ay ka soo baxeen meel ciidankaa haddii la caddeyn waa inay soo baxaan waxaan rabnaa in hawshaasay tallaabo fiican la qaado weli way saxiixeen maaha keliya war waa saxiixeen in ciidanka soomaaliyeed uu ka soo baxay farantiga waa mahadsantaa gudoomiye qalada socoto faido kama keeno faysan faido kama keeno faysan idiyo dhaqan fiicni waa sidee ilayn qabashada farsamada qofol xuma waa arkaya haddii shaqo loogu foofsho ilayn waa fadqalada socoto faido kama keeno faysan faido kama keeno faysan kumaan dhaqan gelayo hadduu faataa shaqeeyo ileen fara wax uga darano fataantuu
baba